والصلاة والسلام على رسول الله. wasiirada madaxda khaatumo madaxda kale guddoomiyaha xisbiga ucid madax dhaqameedka marti sharafta bahda saxaafadda waadin wada salaam iyo gidigiin baa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan cudurdaar yar aan runtii aan doonaya in halkan aan ka sameeyo inaanu idinka soo daahnay dub idinka dhacnay. maanta waa maalin ramadaana, 10kii casho u dambeeyey baa lagu jiraa. ilaahay subxaanahu wa tacaala barakadeeda hayna siiyo. waxaynu maanta halkan isugu nimi in aynu halkan ku kala saxeexanno khaatumo iyo somalilan heshiis aad iyo aad u muhiima oo masiiriya oo insha allah biidni illaahi alkariim inoo horseedi doona reer somalilan nabaddaynu ku naaloonayno, barwaaqo, wadajir iyo midnimo. shirkan isugu nimi wuxuu ka mid yahay oo qayb ka yahay shirar hore labada guddi ee labada dhinac ka socotaa ay ku wada kulmeen Addis Ababa iyo Djibouti-ba. ujeeddaduna waxa weeye sidii looga gaari lahaa ee loo soo afjari lahaa tabashooyinka amba isfaham la-aanta ka jirta qaybo ka mida somalilan dhexdeeda. arrinkaa runtii waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo siday ugu dhabar adeegeen ee ugu adkaysteen ee go-aamada geesinimada leh ay u qaateen guddiyadii labada geesood ahaa ee ka qayb galay. waxaan si gaara doonaan u xuso professorka cali khaliif guddoomiyaha, shabac laftiisa, faysal xag dhinacan kalena waxaan xuso faysal, maxamed xaaji aadan, maxamed daahir, maxamed kaahin. runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaanu wada dareensannahay culayska arrinka aanu ka wada hadalay aanu insha allah kana wada heshiinay. waa arrin aad iyo aad u culus runtii weeye. wixii halkaa ka soo baxa waxay saameynayaan ummaddeenna maanta berito. waxaa le jazaakum allahu khayran, ilaahi subxaana wa tacaala khayr ha idinka siiyo. waxaan jecelahay inaan dul maro heshiiska, dabadeedna hadalka waxaan siin doonaa xubnaha inta kale, dabeedna waanu kala seexan doonaa insha allah biidnillahi alkariim. heshiisku waxa weeye hordhaciisu waxaa 2 ilaa 16 bisha waxaa 2 ilaa 16 bisha aynu ku jiray juun ku sugnaa magaaladan Hargeysa wafdi ka socda khaatumo oo kulamo la galay madax ka tirsan somalilan. kulamadaas oo ku qabsoomay jawi wanaagsan iyo niyad sami. waana uga mahad celinayaa labada dhinacba. ujeeddada kulanku wuxuu ahaa sidii safgarad loogu soo afjari lahaa kulamadii taxanaha ahaa ee lagu qabtay magaalooyinka Addis Ababa iyo Djibouti, wada hadalkana looga midho dhalin lahaa. waxaa la isla gartay mudnaanta ay leeyihiin wada jirka, wax wada lahaanshaha, nabad ku wada noolaanshaha, horumarka iyo meel uga soo wada jeedka cadowga dalkeenna iyo dadkeenna. kuwaas waa mabaadi'da guud weeye. laakiin waxaa lagu heshiiyey qodobadan soo socda: in somalilan iyo khaatumo ay ku tuntuunsadaan sidii
isafgarad buuxa loo wada gaari lahaa in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa Somaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad maamul wanaag xaq dhowrista xuquuqul insaanka ku dhisanna diinta islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin markaas waa sinaan iyo cadaalad sidii loo heli lahaa in dastuurka Somaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta sharci dejinta garsoorka iyo hay'adaha dawliga in la sameeyo maamul daadejin heer gobol degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awoodeeda in shir dambe la isugu yimaado 10ka bisha July laguna qabto magaalada Burco si loogu dhameeyo wixii qabiyo ah lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay aad buu mahadsan doortay inta way qodobadu aan ku heshiinay waa qodobo runtii aad iyo aad u muhiim ah oo fariimo muhiim ah xambaarsan way ka mid tahay sinaan iyo cadaalad sidii loogu sugi lahaa Somaliland geedi socodkuna waxa weeye in shir weyne marka u dambaysa la isugu yimaado si qodobadan kor ku xusay shir weynaha loogu gorfeeyo oo loo qeexo oo meel la isula dhigo maanta waa maalin runtii taariikhiya weeye inta halkan fadhida taariikhda geli doonta insha Allah biinillaahi kariim waxay noo horseedi doontaa insha Allah nolol wanaagsan iyo nabad wanaagsan iyo barwaaqo iyo mustaqbal dhallinyaradeenna ay horseedi doontaa insha Allah biinillaahi kariim islaax ku saleysan waxaan wadnaa waa islaax bayna naas muslimiinna waynu nahay marka intii ka soo shaqeysana mar